qaybta ugu murugada iyo naxdinta badan ee ruuxda bani aadamka daarul barzakh nolosha qabriga guriga aad ku degi doonto iyo jidka aan dib looga soo laaban bal qiyaas maanta waxaa laga saaray sariirtii aad ku hurdi jirtay qof walba oo ehelkaaga ahna wuxuu ogaa inaad u socoto meel aan taleefan loo wicin aan marti laga noqon aanana ahayn meel laga sheekayn karo waxaa lagugu duubay maro cad gacmahaaga waa la isdul saaray indhahaagii waa la xidhay oo la daboolay waxaana laguu geliyey maro cad oo lagu magacaabo karfan oona lagu taxaabay janaaso laa ilaaha ila allah saxaabadii alle ha ka raali noqdee waxay odhan jireen qofkii salaada janaaso lagu dugto wuu og yahay meesha uu u socdo janno mise naar qof walba oo ehelkaaga ka mid ahna wuxuu dhihi doonaa alle ha u naxariisto wuxuu ahaa qof fiican iyo ereyo badan oo muujinaya tiiraanyo socon doonta maalmo amase bilo laakiin isla markiiba waxaa la eegi doonaa saacadda oo aabbena ku leeyahay ha la bixiyo meydka xirxira oo qaada gurigii aad ku noolayd ayaa si degdeg ah kuu ilaawi doona walaashaadii waxay leedahay haddii uu toosi lahaa hal mar waan dugsan lahaa oon dhunkan lahaa balse jirkaagii waxaa lagu sii wadaa janaasadii balse alle mooye yaa kale oo kuu maqan adiga janaasadii oo la rarayo aadna maqlayso dhawaaqa socdaalkii dhabta ahaa waa safarka ugu cabsida badan ee aad weligaa marto laguma gelinayo tagsi laguma dalbayo diyaarado naftaada waxaa lagu raray oo lagu sagootinaya keliya duco iyo aamusnaan dadkii kaa ajir raadsanayay oo ku duugayay waxay ku fikirayaan xilligaas annaguna goormaan sidaan noqon doonaa oo ma jiro qof naftaada u fikiraya marka lagu geliyo qabriga naftaada way maqlaysaa cid walba oo kaa dhaqaaqaysa xilligaas wuxuu yidhi sharaf badnaha sallallahu calayhi wasallam qofka marka la aaso naftiisa waxay maqashaa cid kasta oo cagta dhulka ku dhufata marka qabriga lagu ridayo qofka qabowga iyo mugdiga halkaasi qofka la aasaya waxaa la dhigaa god 2 mitir ah oo dhulka hoostiisa ah laakiin weligaa ma ku fikirtay waa sidee xaalka goobtaasi waa mugdi aan dayax lahayn waa meel aan albaab lahayn iyo irid laga baxo waa guri aan deris lahayn waa meel ehelku kaa allena uu kuula haray casa wajalla xaaladda ugu horaysaba qabriga waxaa kuu bilaabmaya su'aalihii malaa'ig madow oo caraysan ayaa soo degaysa codkooda waa mid argagax leh wejiyadoodu waa kuwo duran oon la eegi karin gacmahooduna waxay ku wataan biro ama wax aad mooddo burus waxay ku weydiin doonaan rabbiga nebigaaga iyo diintaada haddii aad ahayd mid aan salaada dukan aan qur'aanka akhrin aan sunnada nebiga raacin waxaad odhan doontaa haa waan maqlay waxaasi balse ma xasuusto laakiin codkaaga ugu dambayn wuu baaba'aa jawaabtaaduna waxay noqon doontaa been murugada iyo naxdintuna markaasay kuu bilaabani qofka ku dhaca imtixaankaas malaa'igtu waxay ku dhuftaan isla markiiba bir aad u culus rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi hadday dadku maqli lahaayeen qaylada uu qaylinayo qofkaas way suuxi lahayd dhammaan adduunyada carabku wuu qalalaa xilligaas jirka wuu gariiraa naftuna way oydaa dhulka ayaa kuu cadaadinaya sida muruxa ku jira finanka wejigaaga aad u cadaadiso oo kale feerahaaga way isdhex galaan biyihii ilmada ehelkaaga aysan kuu sheegin ayaa indhahaaga hor imaanaya waxaana isla markiiba laguu furaa albaabka jahannamo haddii aad xumaan ku soo noolayd laakiin haddii aad ahayd qof raacay waddadii nebiga sallallahu calayhi wasallam malaa'ig cad ayaa kuu timaada wejiyadoodu waa iftiin neecawna way kuu keenaan waxayna ku dhihi doonaan kunaso halkan ruuxii ilaahay ka raali noqdayo qabrigaaga waxaa lagaaga dhigayaa ballaac ahaan inta ay indhahaagu gaaraan waxaad dareemaysaa neecow ka timaada jannada waxaad dhegaysanaysaa ducooyinka reerkaaga kor kuu soo marinayaan balse ma og tahay walaal qabrigu wuu la hadlaa qofka dadka qaar si fudud ayaa loogu xabaalaa qabriga laakiin naftooda waxay ku sugnaan doontaa ciqaab qabriga ayaa kuu noqon kara jannada meel ka mid ah ama god ka mid ah naarta alle haynaga hayee se ma og tahay saacadda la isku xisaabinayo waa tan qabriga kaaga ma og tahay in dadka qaar qabriga ku ooyaan kumannaan sano iyo wax ka badan iyagoo sugaya qiyaame ma og tahay in iqaabta qabriga ay bilow u tahay naarta jahannamo balse isweydii ma diyaarsatay maanta cid kuu ducayn doonta markaad dhimato ma diyaarsatay salaad kugu filan oo ku tusin doonta jidka jannada ama siraadka ma diyaarsatay qur'aan aad jahannamo ka xiganayso oo kaa difaacayo qabrigu waa daacad isaga ma yaqaano been qurux xoolo ama magac wuxuu yaqaanaa oo keliya camalkaaga midka qarsoon iyo midka muuqda waxaa la yidhi qabrigu wuxuu dhahaa maalin kasta yaa maanta camal fiican ila gala ama yaa igala oo aan cadaaba intaas ayaan jeclaaday inaan idinla wadaago alle ha inaga badbaadiyo cadaabulqabriga haddii aad ka heshay muuqaalka nagu soo biir haadaa wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu